dastuur iyo wakala dambayn xornimo lagu doojiyo dalka lagu maamula hoy dalka lagu maamula dalka lagu kala hagaa weeyaan barashadiisu dadkayga wada akhriya dastuur waa inoo muhiim dadka lagu kala hagaa weeyaan barashadiisu dadkayga wada akhriya dastuur waa inoo muhiim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وياكم كسر ولا مركلة إيه برنامجكي هبينتا دستورك إيه هدية الرمضانتا ووزارتها ورفافتها دقيقة إيجلنتا إيه دستورك إيه هدينها حديث القياسو أي سوي سيك عشران بدون أي سعوت البشرة بركة سنة رمضان. الولاء كل المجال هرجساء أيام السيارات الدول أو دستورك الله إلى كويدنا حديث واضح كوسي الصحة وجوابه سؤال شهر ويدينه waxaa heli doonaa abaalmarin qadar lacaga iyo buugga dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland marka uu horeysa wadanka dhinacayga taagan magaciisa iyo halka uu magaalada Hargeysa ka degay. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Cali Ali Isbakaal waxaan deganahay xaafadda 6 June Cali dastuurka maxaa ka intee laga kaaga bilaaban dawan waa wax badan bay bilaaban waayay su'aasha aan ku weydiinayo ee adiga kugu soo hagaagtay waxay oranaysaa hay'adda ugu sarreysa arrimaha garsoorka ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland دستورك كله أيام شيء هذا وصل السجارسورك جمهورية سومالان وحويا برلمانك جمهورية سومالان ولي مرة هذاك عليو هذا وصل دستورك وحويا المحكمة دا دستورك قرنك جمهورية سومالان محكمة قرنك جمهورية سومالان محكمة السريع si sax ah iyo su'aasha muwaadinkaas uga jawaabay waxaad ku guuleysatay hadiyad qadar lacaga iyo buugga dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo waajib ay kugu tahay inaad akhrisato aad baad mahadsantahay. dalka lagu kala hagaa weeyaan barashadiisu dadkayga wada akhriya dastuur waa inoo muhiim. ولدا waxaa nagala socotaan barnaamijka hay'adda dastuurka iyo hadiyadda rabaanta wasaaradda xiriirka golayaasha dastuurka iyo warfaafintu ay si wada jireen ka kaashadaan bisha barakeysan ee Ramadaan muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool gaar ahaan magaalada Hargeysa ayaanu ku weydiinay su'aalo dastuurka la xiriira taasoo qofku haddii uu si sax ah uga jawaabo uu ku mutaysanayo hadiyad qadar lacaga iyo buugga dastuurka Soomaaliland marka hore magacaaga iyo halkaad Hargeysa ka degantahay. والله magacayga haweenadan baa leedahay Hargeysa waxaan ka deganay Sheekh Madar هويي haddii aad wax ka fahamsan tahay dastuurka Soomaaliland su'aasha ku weydiinaya waxa ay tahay cid leh hab maamuuska koobaad ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan filaynaa madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland si sax ah ay su'aashaasi uga jawaabtay waan ku hambalyeynaa waxaad ku guuleystay qadar lacaga iyo buugga dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo haddii aad akhri karto ama cid kaleba ku akhrido aad ka baran karto dastuurka dalka lagu kala hagaa weeyaan barashadiisu dadkayga wada akhriya dastuur waa inoo muhiim. weli barnaamijkii hibeynta rabaanta iyo hadiyadda dastuurka ayaa la socotaan oo aad ka daawanaysaan telefishinka qaranka Soomaaliland waxaa soo agaasimay oo barnaamijka gacan ka geystay wasaaradda xiriirka golayaasha dastuurka iyo warfaafinta marka hore magacaaga iyo halkaad Hargeysa ka degantahay. magacaygu waa maasatan marka hore waxaa Maxamed Axmed Cabdi oo degan degmada 6 June gaar ahaan Goljan maxamedow su'aashan haddii aad ku weydiiyo si sax uga jawaabto waxaad ku mutaysanaysaa hadiyad qadar lacaga iyo buugga dastuurka Soomaaliland su'aashu waxay ka oranaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa jirta waqti cayiman oo dastuurku siinayo inuu dalka ka maqnaan karo laakiin oo haddii uu bilaad sabab ama sabab la'aan uu dalka ka maqnaado waqti ka badan maxay ahayd aanu dastuurku ogolayn xilli cayiman marka waxba qodobkii sheegin laakiin waxa sheegtaa si guud inta maxay ahayd waqtiga uu yahay waa muddada marka uu safar u baxo oo kale uu ka maqnaan karo oo kismiisu noqon karo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la doonayaa sheegto intaasoo bilood buu ka maqnaan karaa intaasoo maalmood buu ka maqnaan karaa intaasoo sanadaad buu ka maqnaan karaa xilli cayiman oo dastuurku qorayo ayaa jirto oo aanu ka badsan karin waa 3 bilood oo kaliya
aad baad mahadsan tahay su-aashaasi si saxa ugamaad jawaabin waad ku mahadsan tahay ka qayb qaadashada dalka lagu kala hagaa daweeyaan barashadiisu dadkayga wada akhriya dastuur waa inoo muhiim weli daawadayaal waxaa nagala socotaa barnaamijka hibeynta dastuurka iyo hadiyadda rabadaanta oo wasaaradaha warfaafinta iyo xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurku ay si wada jira isaga kaashadaan bisha barakeysan ee ramadaan magaalada hargeysa ayaanu weli ku sugannahay muwaadiniinta reer somalilan ayaanu su-aalo dastuurka la xidhiidha weydiin doonaa taasoo haddii uu muwaadinku si saxa uga jawaabo uu ku mutaysanayo qadar lacaga iyo buugga dastuurka marka hore magacaaga yaalka hargeysa ka digan warsamo gooxraana deel xaafadda shacabka warsamow su-aashaan ku weydiinaya haddii aad ka jawaabto hadiyadda aan sheegay aad mutaysanaysaa waxa ay tahay yaa leh awoodda soo jeedinta in dastuurka wax laga bedelo sida madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan warsamo su-aashaas si saxa ayuu uga jawaabay waanu kugu hambalyeynaynaa dastuurka ma akhridaa dastuurka waan akhriyaa laakiin se weli buugisa ma haydin buuggii waad yaa mutaystay aanu kugudowsiinayno iyo qadar lacaga muwaadin somalilan maadaama tahay inaad dastuurka wada barato waa waajib aad baad umahadsantahay waa baranaya insha allah ku yaala dalka lagu kala hagaa daweeyaan barashadiisu dadkayga wada akhriya dastuur waa inoo muhiim weli waxaanu daawadayaal ku guda jirnaa barnaamijkii hibeynta dastuurka iyo hadiyadda rabadaanta soo dhawow adiguna magacaaga saddexan iyo halkaad magaalada hargeysa kaga nooshahay magacayga waxa weeyaan Cabdiqaadir Guuleed Saciid waxaan xaafadda Maxamuud Heybad aan dheer cabdiqaadir ow su-aal la xidhiidha dastuurka jamhuuriyadda somalilan baan ku weydiinaa haddii aad ku guulaysato qadar lacaga iyo buugga dastuurka ayaad ku guulaysanaysaa su-aashu waxa ay ku odhanaysaa luuqadda labaad ee jamhuuriyadda somalilan dastuurku jidaynaya waxa ay tahay luuqadda labaad ee dastuurku jidaynaya waxa weeyaan waa carabi weeyaan marka Soomaaliga laga tago Soomaaliga koobaad talabaadna waa carabi si saxa ayaad su-aashaasi ugu guulaysatay waxaanu ku leenahay hambalyo dastuurka ma akhridaa dastuurka waan akhriyaa laakiin waan raawan akhriyaa dastuurka waan akhriyaa imakana si saxa oo dhammaystirmaad u wada akhriyi doonta haddii aad jaan soo hesho markaa hadiyaddaadina wataa aad baad u mahadsan tahay ka qayb qaadashada dalka lagu kala hagaa daweeyaan barashadiisu dadkayga wada akhriya dastuur waa inoo muhiim weli daawadayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeennii hibeynta rabadaanta iyo hadiyadda dastuurka mid kale oo ka mid a muwaadiniinta somalilan ayaanu weydiin doonaa su-aal dastuurka la xidhiidha balse intaanaan weydiin magaciisa saddexan iyo magaalada hargeysa halka uu ka degan yahay hawa marka hore waan salaamayaa magacayga oo saddexan waxa weeye maxamuud maxamed diiriye waxaana ka degan degmada maxamed mooge maxamuudow su-aashani waxa ay odhanaysaa oo haddii aad ku guulaysato aad ku mutaysanayso qadar lacaga iyo buugga dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobka dastuurka ka mid a ee sheegaya taliyaha ugu sarreeya ciidamada qaranka marka qodobkii si guud qodobkii waxba ha u sheegin si toosa ama qodobka uu yahay laakiin waxaad sheegaysaa taliyaha guud ee ciidanka qaranka taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee somalilan oo dhan cid qofka uu yahay wallaahi su-aashaas waa igu adagta ma garanayo aad baad mahadsan tahay dowladnimo waa dastuur sharciyo waa kala dambayn qarnimo lagu doojiyo dalka lagu maamula hoy dalka lagu maamula dalka lagu kala hagaa daweeyaan barashadiisu dadkayga wada akhriya dastuur waa inoo muhiim dadka lagu kala hagaa daweeyaan barashadiisu dadkayga wada akhriya dastuur waa inoo muhiim